shan waxyaabood oo kor loogu qaado heerka caqligaaga ama sida loo noqdo qof caqli badan. Caqli badnidu waa awoodda wax lagu barto si dhaqsi ah, waa awoodda lagu abaabulo laguna aruursado xogag badan, waa awoodda looga sameeyo go'aamo sax ah, isla markaana waa awoodda lagu xaliyo dhibaatooyinkaaga. Warka fiican ee aan ku hayo wuxuu yahay inaad kordhin karto heerka caqligaaga waa haddii aad si sax ah u samayso waxyaabaha aan hadda kuu sheegi doono. Ugu horeyn, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Haddaba aan u galno. Nambarka koowaad, kordhi aqoontaada. Qayb weyn oo ka mid ah caqli badnidu waa inaad hesho ama aruursato xogag badan si aad u samayso conclusion iyo go'aamo fiican. Haddaba akhri oo baro wax badan si aad u hesho xog badan, isla markaana aad u samayso go'aamo heer sare ah. 2. Kor u qaad isku xirnaanta maskaxdaada. Weli ma isweydiisay oo mala yaabtay farqiga u dhexeeya maskaxda maroodiga iyo maskaxda bani'aadamka? Maskaxda maroodigu wuxuu 3 jibaar ka weyn yahay maskaxda bani'aadamka, haddana bani'aadamku wuxuu aad uga caqli badan yahay maroodiga. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxay bani'aadamku ugu caqli badan yihiin maroodiga iyagoo maskaxdoodu intaa ka yar tahay? Jawaabtu waxay tahay xiriirka u dhexeeya isku xirnaanta unugyada ee bani'aadamka wuxuu aad ugu badan yahay tan maroodiga. Haddaba si aad kor ugu qaado heerka caqligaaga aadna u noqoto qof caqli badan, kor u qaad isku xirnaanta maskaxdaada adigoo baranayo xirfado adag ama ciyaaraya games adag. Inta badan ee aad isku xirto maskaxdaada waxaa badanayo inta badan ee aad noqonayso qof caqli badan. 3. Raac oo ku xirno dad caqli badan. Qodobkan waa qodob aad u muhiimsan. Ma ogtahay in hanaanka loo fikiro la kala baran karo? Inta badan ee aad raacdo dad caqli badan waxaa kordhaysa inaad awood u yeelato inaad fahanto qaabka ay u fikiraan, taasina waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof caqli badan. 4. Cabista kofeega. Ma ogtahay in maadada ku jirta kofeega ee loo yaqaano caffeine ay kordhiso feejignaanta maskaxdaada ayna horumariso awoodda iyo xabaaraha ay ku shaqayso maskaxdaada? 1 koob oo kofii ah aad cabto waxay kaa caawinaysaa inaad isticmaasho awoodda dhammaystiran ee maskaxdaada. 5. Sii habo badan maskaxdaada. Markii aad si xoogan neef u qaadato, oksijiin badan ayaa gaara maskaxdaada. Tani waxay kor u qaadaa awoodda fikirkaaga. Intaa kadib bal shaqee ama waxbaro, waxaad ogaan doontaa in horumar ballaaran ku yimaaday qaabka aad u fikirto. Ugu dambeyn, waxaan filayaa inaad like saartay muuqaalka. Waa haddii aad rabto inaan soo badino muuqaalada noocan ah. Mahadsanid.